mar uu xukun ku ridayay 2 wiil oo dhalinyaro ah oo maleegayay weerar argagixiso ah oo la qaadi lahaa sanadka cusub ayuu garsoore Desmond Fagan diiradda saaray sidii looga hortagi lahaa dambiyo kale oo noocaas oo kala garsoorahan maxkamadda sare ka tirsan ayaa si gaar ah u tilmaamay waxa uu ugu yeeray aayadaha quraanka ee waa sida uu hadalka u dhigay colaadda iyo dagaalka ku baaqa ama wata. The incitements to violence which terrorists quote from the Quran cannot just be ignored by the many believers who desire harmonious coexistence. kicinta rabshadaha ama gacanka hadalka ay argagixisadu ka soo xigtaan quraanka ma aha wax ay indhaha ka qarsan karaan qaar badan oo diinta haysta oo doonaya in dadku si fiican u wada noolaadaan. aayadahaas ma aha kuwa ay argagixisadu iska indhatiraan sida aan ka aragnay kayskan wiilashan iyo kaysas kale oo aayadahaas colaadda ku baaqaya ay dhiirigeliyeen in dambiyo waaweyn ay ku kacaan. garsoore Fagan ayaa isagoo hadalkiisa sii wata yiri dadka diinta islaamka haysta waa inay cambaareeyaan qaybo ka mida kitaabka quraanka. If Australian followers of the religion, including those who profess deep knowledge, were to make a clear public disavowal. haddii Australiyaanka diinta aaminsan oo ay ku jiraan kuwa sheegtay inay aad u yaqaanaan ay si cad oo babliga u diidi lahaayeen aayadahaas oo ay yiraahdaan ma aha amarkama dambaysa oo Ilaahay bixiyay markaas ku dhiirashada argagixisada inay falalkaas ku kacaan way wiiqmi lahayd